hawlsaasyadka wadanaya maanta waa dalka muujiyay magaala madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo waxaana madal ballaaran oo la isku arkay ku soo bandhigay 22 xubnood oo kamid ah musharaxiinta golaha deegaanka uga loolami doonta ururkaasi degmada Ceergaabo waxaana munaasabadaas oo mid milgay iyo maamul heer sare loo soo agaasimay lagu qabtay fagaaraha caanka beerta xuriyada Nuura 2 ee magaalada Ceergaabo waxaana munaasabadaas oo isugu yimaadeen kumanaan shacabka iyo taageerayaasha hawlsaasyadka wadani oo sida calanka liimiga iyo waliba astaanta calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland dadkii kala soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka ee hawlsaasyadka wadani madax dhaqameed isugu jira Sulaadiin Ugaal waayeel waxgarad waxaana sidoo kale munaasabadaasi ku sugnaa haween aad u tiro badan iyadoo munaasabadana ay ahayd midaan haldoorka iyo koofiyadda gobolka Sanaag aanay u kala hadhin waxaana munaasabadaasi lagu soo bandhigay musharaxiinta si weyn uga dhex muuqday maayarkii hore degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur kaasoo in dhawaalaba ay shacabku ay isha ku hayeen meesha uu diga rogan doono waxaana munaasabadaasi ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hawlsaasyadka wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan ayaa isagu sheegay in madashan ay ku sugan yihiin 22 xubnood oo kamid ah musharaxiinta kuwaasoo sheegay inay yihiin kuwa miisaan culus leh isla markaana karti iyo aqoon iyo waayo aragnimo ay ku soo xusheen shacabka reer Ceergaabo isaguna madashaasi isaguna halkaasi ka hadlay maayarkii hore degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa halkaasi uga hambaliyay mas'uuliyiinta sarsare ururka iyo waliba taageerayaasha hawlsaasyadka wadani iyadoo maayarkuna uu ku dheeraaday waxqabadkii muddadii golaha deegaanka ee hore ee xilka ay soo hayeen waxaana sidoo kale maayarku halkaasi uu ka soo jeediyay hadallo duurxula oo ku wajahan xildhibaanada golaha wakiilada oo uu sheegay in ay dhawaan yimaadeen gobolka Sanaag kuwaas oo ka warramay waxqabadkoodii waxaana sidoo kale maayar Ismaaciil uu ka dhawaajiyay hadallo dhawaan ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi ayaa waxa uu sheegay inay hadalladaas haayeen kuwa xajima oo gobolka Sanaag uu la kacay waxayuna dhamaantood halkaasi ka hadlay qaar kamid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag oo ay kamid yihiin boqor Maxamed Nuux Aadan Cigaal iyo Suldaan Cali Yuusuf Badacas iyo boqor Maxamuud Sheekh Ismaan Nuur Timcade iyo Tiif Caaqil Maxamed Cabdi Soofa ayaa iyaguna dhamaantood sheegay in xubnahan ay yihiin kuwa ay aqoon iyo daacadnimo ay ku dhaahantahay isla markaana oo Ilaahay uga baryeen in ay ku guuleystaan waxayuna dhamaantood halkaasi hadalka isaga daba qaar kamid ah musharaxiinta golaha deegaanka uga tartami doona hawlsaasyadka wadani degmada Ceergaabo ayaa waxa iyaguna halkaas ay ku soo bandhigeen waxqabadkooda iyagoo shacabka reer Ceergaabo ugu baaqay inay codkooda ay siiyaan iyaduna sidoo kale halkaasi ka hadashay gudoomiyaha hawlsaasyadka wadani ee garabka haweenka Sayna Maxamed Jaamac ayaa iyaduna halkaasi sheegtay inay si weyn u soo dhaweynayaan xubnaha musharaxiinta kuwaas oo ay sheegtay inay horumarinta degmada ay si weyn uga qayb qaadan doonaan munaasabadan oo mid si heer sare loo soo agaasimay waxa ugu dambeyntii soo afmiray mas'uul sare oo ka tirsan hawlsaasyadka wadani Cabdulaahi Axmed Daamur ayaa isaguna halkaasi sheegay inuu si weyn u soo dhaweynayo mas'uuliyiinta waxaana sidoo kale uu ku dheeraaday gulaha siyaasadeed ee hawlsaasyadka wadani uu ka soo hooyay dalka gudihiisa iyo dabadiisaba munaasabadan ballaaran hawlsaasyadka wadani uu ku soo bandhigay musharaxiintiisa ayaa ahayd mid si weyn loo soo agaasimay Cali Aadan Daahir telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo.